اوكي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر هذا وشبكة أفلح كمبيوتر دوت كوم مع الاندريد إيو 10 أفراد introduction of networking إن 10 كنا مانتا وحنو كهذلنا exactly صدح قضب أو إسكو exactly هالقضب وحنو كهذلنا internet وامحي internet وامحي سي intranet وامحي سي extranet so exactly وحنو كهذلنا محيين سيدي الله استعماله فرق u dhaxeeyo waa maxay so these things waxa weeyaan waa basically markaynu maxaan ku radaa basic in ka hadlana network in aynu fahno exactly and just these things okay aan ka bilaabo exactly ka ugu horeeya which is internet okay waxa xasuustaa su'aasha igu qosolka badnayd and waxay ahayd glass ka mid ah ardaydeedan waxaan weydiiyay in waa maxay internet and then internet what internet okay taa waxa ka horeysa waxaan weydiiyay okay in qof kasta internet uu isticmaala Soomaa ha then waa maxay internet okay the internet waa kaas aan dadka kala xiriirno oo dadku wada xiriiraan it's okay like waa maxay internet waa maxay internet mid baa internet ka waa kan Facebook ka isticmaalo so anyway ama Facebook ka isticmaal ama ka isticmaal email ama ka isticmaal just whichever kind of service laakiin waxa laga rabaa waa maxay internet simple is that and internet simply you know and maxaa la yiraahdaa and just waxaan raahno exactly and you know and the connection of the world of the computers you know and for example and internet ka waxaad isweydiin karnaa ma samayn karnaa inagu yeah adigu ma samayn kartaa anu ma samayn karaa of course yeah simple internet ku simple waxa weeyaan waa computer ama just a computer badan ama just a service whichever uu noqdo ayaa waxa lagu guray data lagu guray videos lessons everything audios you know books everything halkaas lagu guray and markii lagu guray oo data badan la geliyay ayaa just share la dhigay wala share gareey dunida dhan baa loo share gareey kabacdina qof kasta waxa loo ogolaaday in uu exactly soo geliyo data uu soo gelin karo simple is that so adiga the time at internet ka ku xiran tahayba waxaad ka mid tahay connection of the world of the computers macnaha computerada ugu badan ee dunida waxa isku xiran yihiin waa internet-ka exactly marka internet-kaas marka ama just satellite la isticmaalo iyo routers iyo whichever and there is many maxaan ku raday sources baa la isticmaalaya exactly marka la soo xiray laakiin just adiga waxa weeyaan waa simply waa computer lagu guray wax kasta maxaa lagu guray emoji wax kasta wax allaale wax internet ku jira ee lagu guray marka lagu guray waxa laga dhigay maxay share waa la share gareey kabacdina qof kasta waxa loo ogolaaday inuu wax gelin karo so simple iminka hadaan halka computer dhigano oo aynu ku gurno whichever internet-ka ku jira oo kale haday tahay lessons the books haday tahay films haday tahay you know and whichever audios haday tahay whichever hada wax kasta any kind of product markaynu ku gurno maybe 5 years aqaadato 10 years aqaadato whichever markaynu buuxino ama just aynu wax badan ku gurno aynu share garayno kabacdina u ogolaan inay dadkana exactly ay wax ku guraan that's internet very simple internet aynu sameeyna it's very simple so just marka and qof kasta oo internet-ka marka isticmaalaya networks ayuu wuxuu ka yahay exactly and muxuu ka yahay and exactly oo member ka yahay marka just a worldwide connection of computers so and haddii marka aad doonayso information-kaaga inuu gaaro qof kasta oo dunida jooga then waxaad u baahan marka inaad samayso exactly internet because internet kale oo gaaraya dunida oo dhan exactly ma jiro an internet type application uses internet protocol marka internet ku isticmaala wax la yiraahdo protocols ka in badan man ka hadlanay protocols ka waxa weeye just it's the HTTP hypertext protocol and hypertext transfer protocol FTP and file transfer protocol SMTP and small message transfer protocol so waxan protocols simply and we badan when arki doonaa oo exactly section done oo ilaa intaas oo 10 20 ku dhawaad noqonaya ayaan waxaan kaga hadli doonaa
only protocolska just waa waxa isku fahmayaan network marka la isku xiro computerada isku xiran waxa ay isku fahmayaan just waa languageka computersku ay isku fahmayaan waxyaabaha ay isku fahmayaan ayaa waxa la yiraahdaa exactly maxaa la yiraahdaa network so hada http protocolska ay loo isticmaalo exactly markii browserska la isticmaalayo ama serverska iyo clients ftp another protocol stmtp waa marka la isticmaalo exactly messageska iyo markii exactly la dirayo so all these things are very important marka internet waa maxay internet just one connection of the computers around the world and maxaan ku radaa exactly dunida oo dhan right and ku xiga wuxuu noqon doonaa what we call it's going to be an intranet okay intranet waa maxay right intranet waa opposite-ka exactly waxaan oran karnaa and intranet waxaan sameynanaa network aynu isku xirino computer oo laakiin just local and company-ga gudihiisa ama building-ka company-ga gudihiisa ayaan waxaan sameynanaa network-kaas marka dibadda lagama soo geli karo adna dibadda wax uma diri karto macnaha internetka dunida kuma xirna internet waa maxay internet muxuu ahaa the wall connection of computer dunida oo dhan bo laakiin internet waa just maxaa leedahay company-ga and exactly aad maxaan ku radaa aad markaa joogto ama ka hadlayso ama guriga kaliya ayaan xoran exactly internet marka just waxaan sameynaa network aan isku xirno computerada iyo serverska shaqaalaha iyo maxaan ku radaa inta network ama joogta exactly company-ga laakiin dibadda ma doonano exactly in aynu u baxno ama laga soo galo kaas ay leedahay intranet marka and internet is a shared content accessed by members with a single organization just simple as that waxaan contentigi waa maxay international ku soo aragnay the main important of maxaan ku radaa network wuxuu ahaa exactly to share data to share content simple as that marka wixii datadii baa la share garaynaya ka bacdi that's why aan leenahay internet waa maxay waa computer ama laga buuxiyay exactly maxaan ku radaa waxyaalahaas oo dhan oo kadib la share gareeyay oo exactly dunida lagu share gareeyay say uga faa'iideystaan waxa ku jira marka iyana ay wax u gelin karaan marka exactly marka adigu mar kasta oo aad internet wax geliso xumin baa ka tahay Facebook baad wax gelisaa iyo waxa gelisaa laga yaabay maxaan ku radaa YouTube waxaad wax gelisaa maxaa la yiraahdaa exactly emailadaada and all these things at samaynayso because of what you are member of internet adaaba internet qayb kamid ah taa right marka of course and information kaas marka ku jira and exactly companies internet will not be accessible to a person on the internet because it is not for public use public ma isagu waa local so company-gaas ku jira information for example company-ga internet isticmaalayo company-gaas internet-ka uu datada uu share garanayo waa all of the world for example kale website buu leeyahay datada website-ka ku jirta ee company-ga dunida oo dhan waa laga arki karaa meel kasta laakiin datada ku jirta internet-ka local-ka maxaan ku radaa maxaa leedahay khadka local-ka ama network-ka local-ka exactly iyada ma aha public dibadana exactly lagama soo geli karo right haddii aynu fiirino exactly waxaan nidhano ka u dambeeyo oo ah extranet right waan soo fahanay waa maxay internet waa maxay se internet waa maxay now extranet waxa weeyaan simply and waxaan isticmaalaynaa exactly internet ma isticmaalno intranet ayaan isticmaalnaa laakiin ka waran company-ga wuxuu leeyahay laba branch magaalada wuxuu ku leeyahay laba qaybood and then waxaynu doonaynaa inaynu labada qaybood aynu isku xirno very simple so ama maye waxaad doonaysaa adoon internet isticmaalayn inaad customerskaaga ku xiranto ama partnerskaaga ku xiranto oo company kale oo iyo partnerska inaad ku xiranto oo connection ka samaysaan then network noocaasa ayaa marka wuxuu isku bedelaya ama noqonaya waxaan yiraahdo extranet very simple so from time to time marka an application that has been built for the company's intranet and used by internet employees internal employees will need to be extended to select business partners or customers so internet waxa isticmaalay macnaha waa internal employees ka isticmaalay laakiin waxa loo baahan yahay in lagu xiro and ama extension lagu sameeyo iyadoo la dooranayo qayb kamid ah partnerska ama customerska ama branch kale ama whichever meel kale ayaa doonaysaa xarun kale inaad ku xiranto and then kana waa internet
حقنا waa internet then waxaad noqonaysa marka exactly extranet ayuu noqonaya marka network noocaasa. If you extend your internet haddii marka aad extension ku samayso internetkaaga adoo dooranaya marka qayb ka mid ah partnerskaaga ama businesska ama customerskaaga then waxaad samaysay marka extranet ayaad samayso marka. Extranetku marka waxa la looma isticmaali karo qof kasta oo external ah. qof kasto external adu isticmaal karo that means internet bay noqonaysaa waa qofkii kaliya aad ku xirantay waa branch kaliya aad internet aad ku xirantay waa exactly customer kaliya aad ku xirantay ayaa isticmaalaya. I hope inaad fahantay exactly saddexdaas faraqa u dhaxeeya hadaynu fiirino exactly on the diagram ka hadaynu fiirino and exactly saddexdoodaba right. dad fiirsa sawirka midigta ugu xiga halkan waa exactly waa intranet so halkan waa internet server firewall ka bacdina oo maxaan ku rado u dhaxeeyay isaga iyo network so halkan waa another server halkan another server halkan another application server iyo internet computers kan waa local network marka right. laakiin waxaan doonaynaa iminka inaan ku xirano network customer kale oo iyagu internetka ku xiran aynu doonayna inaan director ugu xirano marka internetka uma dhex marayno just labadan waxaan isku xiranaa kaliya and internet local network iyo exactly customer and then waxaanu sameynaa marka waxa la yiraahdaa maxay exactly and exactly extranet right. haddii aynu internet isticmaalno internet waa maxay marka internet wuxuu isku xirayaa all of them and customer network iyo local network all of them markaan isku xirno wuxuu isku noqonaya marka exactly internet marka. I hope marka inaad fahantay exactly difference u dhaxeeya saddexdaas so ila soco casharka xiga ma haysanin.